saaray haween sida u jeedaan meeshan waa meeshii caruusada iyo caruuska ay fadhiyeen oo xafladu ay ka socotay runtii aad baan uga xumahay waxay ahayd farxad waxay ahayd murugo isku bedeshay tani waa qiso ka dhacday magaalada Muqdisho isla stage u taagnaa Qamar Suugaan fanaanka caaga ee Qamar Suugaan ee waayihii dambe cirka isku shareeray heesiisa iyo fankiisaba hadaba qisadan oo aad u xanuun leh ayaa ka dhacday hotel kamid ah hoteelada Muqdisho kaas oo ka socotay xaflad isla waqti xaadirkan waxa joogay fanaanka caanka ee da'yar ee ku sugnaa waqti xaadiradii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho kuma waa Qamar Suugaan isla halkii oo ka socota baashaal iyo farxad ayaa isla markuu halkii stage u taagnaa dadkii ka soo qaybgalkii iyo halkii fanaanku taagnaa isla hal mar gooday taasoo noqotay bulaacad isla markii dambana gooday halkaas oo ku dhaawacmeen total good 3 qof labana dumar yihiin halka kalena nin yahay hadaba ciidamada amniga ayaa soo gaaray markii ay ka soo saareen hadaba laamaha amniga ee hotelka ayaa markii isla waqti xadirkii ka wareejiyay xafladii oo meel kale ka dhigay arintan ma ahayd maslada daawada waa qiso aad u xun taasoo loogu talagalay ama Ilaahay uga digay dadkiisa xumaanta iyo hoteelada waxay ku qabanayaan hadaba runtii waan ognahay in maalmihii ugu dambeeyay ay ka socotay hadaba daawada ma soo karnaa qisadan waxay qiso aad u xun taas hadaba waan ogsooneen in baraha bulshada ay gabihaanba ku faafay fiidiyoogin isagoo barta Facebook saa u dhex wareegay hadaba maalmo ka hor bay ahayd markii fanaanka caanka ama waanka caanka Faarax Murtiile kuriyada isagoo geeriyad oo meedkiisiba yaal kadib taasi waxay noqonaysaa arrin xun markii culimada Soomaaliyeed isku geeyeen waxay noqonaysaa in isla waqti xadirka Ilaahay uga digay oo taasoo tacsidiisa tusay hadaba halkan waxaan uga dirinaa dhammaan fanaaniinta in ay tabti caddahan Xaashi Cabdullaahi ku daydan oo ay xagga Ilaahay u soo dhaqaaqaan xumaantana iskaga tagaan hadaba warbixinta oo dhameystiran ay halkan kugu soo gudbin doonaa daawad saaxiibal tanana u gudagalin barnaamijka fadlan saaxiib waxaan ku leenahay fiidiyoga like saan sidoo si gaar ah saaxiib waxaan odigoo kala waanad ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga ee ku soo dhawaada hadaba mowduucina maanta halkanna kaga bugo sida wax u dhaceen iyo maamulka hotelka oo faafaahin ka bixinaya iyo Qamar Suugaan isla waqti xaadirka showgii isla xafladiiba ka cararay waa tan ee daawad lagu magacaabo oo xaflad aroos ay ka socotay waxa uu u dhow yahay isgoyska Digfeer kab ayaa laga soo saaray haween sida u jeedaan meeshan waa meeshii caruusada iyo caruuska ay fadhiyeen oo xafladu ay ka socotay runtii aad baan uga xumahay waxay ahayd farxad waxay ahayd murugo isku bedeshay